وفتي وقامني هو كان كجودة والقلنت عيدا كلا هذا حبه السملة قشال عوار أحمد جلال سودال كيس وكون اللي تليها جارك وقع بسندين عهدها يبضها تليها جودة عيدا كلا هذا حبه السومالي لان خبير عبد الله عمر قودن يا سوق على حرم تلسك الصديق السدح هذا عيدا كلا هذا حبه قبل كسنة جيتك ماذا مايده وأنا وفتي سودال كودا كسب بلا بحبها قلبيتك قبل كسنة جارهنا ديجنا ذا برياش عيدا ماذا عنقري الرجودة يا وشدد وفتي وصلكوا يا سيدا يكور كلها حالة عيدا ماذا يدردر قلنتها يولي بسيدي لبر هذا لو عصري يقول رجلها مدحضة عيدا ماذا صديق السدح هذا قبل كوحنا sidoo kale ay ku wareejiyeen gaari loogu talagalay barta ciidan ee ruguda waxaana waftidu markii ay soo gaadheen xarunta saldhigga saddexaad ee ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Sanaag ee degmada Maydhe halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha iyo waliba saraakiisha kala duwan iyadoo halkaas aslaan sharaf ay kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Sanaag waxaana halkaasi hadallo soo dhaweyn ka soo jeediyay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Sanaag Gaashaal Garaad Saalax Xasan Majabe iyo waliba maayirka degmada Maydhe Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh Saciid raadaal labada raadaal oo markii uu horeysay raadaal casri ah oo badda waa lagu ilaalin karo la keeno oo shalay ruguda ku soo rakibteen kii labaadna maanta aynu meel ku rakibayno iyo gaariga ay bixisay deegaanka ruguda inta waan ka gudoomayaa aad baan runtii ugu hambalyeynaya taliyaha ciidanka sareeya guuto Cabdi Xirsi waftigan maanta nooga yimi galbeedka noo siday qalabka raadaalada badda iyo baabuurka ay bixisay ruguda aad iyo aad bay aniga maanta farxad iigu tahay waa qalabadii ugu sareeyay ee ugu casrisanaa ee badda waana markii u horeysay ay soo gaaraan qalab noocan oo kala ah degmada Maydhe iyo nawaaxigeeda waxaan si kaliya laaba hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa dawladda uu madaxweynaha ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaana kaasi hadalkiisa kala dambeeyay la taliyaha u qaabsan dhinaca heedaha iyo badaha taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya khabiir kabtan Cabdullaahi Cumar Qowdhan iyo waliba hoggaanka guud ee howlgelinta ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya Gaashaal Cawaal Axmed Galaal waxa soo hordhacay wixii horumarin ahaa ee baddu lahayd 6 raadaar waxay yaaleen 5 sanadood bay yaaleen maqaasiinada runtii maanta waxa keenay waa jalanka markuu arkay 6 raadaar marka laga hadlana ilaa wax qabadka laga hadlayaa dawladda cusub dawladda muxuu Soomaaliland ba keentay markii uu horeysay ma waxay inoo keentay inaga gacanteena ku soo iibsan waxaan tani ka mid tahay in la keeno maanta halkan qalab lagu ilaaliyo wixii biyaha badda Soomaaliland soo gala wadaalada ay xukuumaddu keentay waa security ayay ka mid tahay ilaashiga badeena iyo dhulkeena waxaan u sheegaynaa cid kasta oo isku dayda inay wadankan sharci darro ku soo gasho ama ay kaga faa'iideysato kheyraadkeeda ama ay kaga faa'iideysato khalkhalgelin istaahada kaga faa'iideyso dhinaca badda iyo amnigeeda inay jabiya halaa kala kulmi doona baan u sheegaynaa si kastaba xukuumadda Soomaaliland iyo taliska ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland iyo dadaallada horumarineed ugu jira sida ay u tayeyn lahaayeen ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa saldhigga saddexaad ee gobolka Cali Andar telefishinka caalamiga Home Cable TV xarunta taliska saldhigga saddexaad ee degmada Maydhe.